حديث اليوم وحديث كمانتا. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. waxaa laga wariyey abi mascuudin cuqbata bni camrin alansaariy oo ahaa saxaabi badri ah oo badar ka qayb qaatay, ilaahay raalliha ka ahaadee inuu yidhi, wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam, dhabtii waxyaalaha dadku ka soo gaaray hadalkii nebinimadii hore waxaa ka mid ah, haddii aadan xishoonayn samee wixii aad doonto. bukhaari ayaa wariyey. nebinimadii hore yacni kuwii ka horreeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa nebi ka dambeeyey maba jirine. xishoodku waa gilgilasho qofku ka dareemo samaynta wax aan qof ahaan ku fiicnayn ama ku habboonayn oo uu markaas dareemo khajil iyo iscaabsi. haddaadan xishoonayn waxay noqon kartaa haddaadanba reer xishood ahayn wixii aad doontaad samaysaa ileen damba kama lihid wixii sharaftaada ka soo gaaraye. waxay kaloo noqon kartaa marba haddaadan xishoonayn fal kasta oo aan laga xishoon ayaad samayn kartaa adoon dan ka lahayn dhaawaca uu u geysanayo sharaftaada. faa'iidooyinka xadiidka: kow, in waxyaabihii laga dhaxlay ummadihii hore ay weli ku baaqi ahaan karaan ummaddan, waxaase laga fiirinayaa qaabka lagu soo guuriyey dhaxalkaas oo noqon kara jidka qur'aanka, jidka sunnada, ama mid dadku isu gudgudbiyeen. kan qur'aanka oo kale wuxuu noqon karaa: bal tu'thiruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayrun wa abqaa inna haada lafi الsuxufi اluulaa suxufi ibraahiima wa muusa. rasuulkuna sala allahu calayhi waaalihi wasalama wax badan ayuu ka sheekeeyey reer bani israa'iil. marka waxaa loo kala saarayaa wax sharcigeennu inuu sax yahay caddeeyey oo sidaas sax ku noqda, wax sharcigeennu caddeeyey inuu baatil yahay oo sidaas baatil ku noqda, wax sharcigeennu uusan dhanna u caddayn oo laga istaago xukumidiisa. dhibse ma leh in wacdiga iyo wixii la mida loo soo qaato oo loo isticmaalo iyada oo la caddaynayo xaaladdiisa si aan qofka dhegaysanaya uga fahmin in waxaan la sheegayaa ay yihiin wax sax ah oo sugan. labo, xishoodku wuxuu ahaa wax ummadihii hore yaqaaneen oo qiimayn jireen. saddex, xishoodka iyo wanaaggiisa ayaa xadiidka ka cad. xadiid kalena nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu ku tilmaamay inuuba yahay farac ka mid ah faracyada iimaanka. afar, xishoodku waa laba nooc: nooc xaq alle ku saabsan iyo nooc ku saabsan xaq wixii uu alle abuuray ah oo makhluuq ah. kan alle wuxuu xishood sax ah ku noqonayaa inuusan kugu arag meeshii ama wixii uu kaa reebay, uusanna kaa waayin meeshii ama wixii uu ku amray adoo xishood ku marmarsoonaya. kan makhluuquse waa ka fogaanshaha wax kasta oo wax u dhimaya sharafta qofka oo khilaafsan dabeecadda wanaagsan oo magac xishood lagu sameeyo. shan, waxaa kale oo loo qaybin karaa xishoodka xishood qofka rabbi ku beeray oo qofku uu ilaa yaraantiisii iska ahaa qof xishood badan oo aan ku dhiiran in uu waxyaalaha qaarkood ku hadlo in ay baahi dhab ahi jirto mooye.
iyo xishood uu qof aan markii hore u dhalani uu isbari karo isaga oo naftiisa ku tababaraya xishoodka. 6 culimmadu waxay yidhaahdaan kan abuurista ah ayaa fiican, laakiin mid uu yahayba waa inuusan qofka u diidin waajib ama ku ridin xaaraan. 7 qofku inuu wuxuu rababa iska sameeyo oo uusan dan ka yeelani waxay daliil u tahay xishood darradiisa, waana nooca sariiglaawayaasha loo yaqaan magacay doonaanba ha la baxeene. 8 xadiidka waxaa laga fahmayaa in ay u bannaan tahay qofka samaynta waxa aan laga xishooni. 9 waxaa xadiidku caddeeyey khaldanaanta kuwa jabariyada ah ee aaminsan in qofku uusan gebi ahaanba wax doonis ah lahayn. xadiidku waa xadiid aad u fawaa'id badan. inta aynu xadiidka xiga ku kulmi doonnana waxaynu idinku dhaafaynaa ammaane allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين